ka baxay gebi ahaanba magaalada Guraceel ee galguduud muddo 4 maalin ah oo dagaal halkaasi uu ka socday halkee ayuu qabtay Sheekh Shaakir waqti sidee xaaladda Guraceel iyo hadal xasaasi ah oo Shaakir u jeediyay ayaa qaybaha dambe ee muuqaalka aad ku daawan doontaan dhammaantiinba muuqaalka sheerta ku qabta leegareeyana rabbi subxaanahu wa tacaala dhammaanteen umuuraha leenahay ilaahay ha inoo sahlo soomaaliyana meel aamin ha ka dhigo Guraceelna colaadda ilaahay ha ka soo abtiro wararka ka imaanaya magaalada Guraceel oo ka tirsan gobolka galguduud muddo 4 maalin ah dagaal uu ka socday waxay xaqiijinayaan in Sheekh Shaakir galabta uu ka baxay xirada jaamacadaha ee duleedka degmada Guraceel ee gobolka galguduud ila xoogaala ayaa xaqiijinaya in Sheekh Shaakir uu qabtay dhanka degmada Xaraale halkaas oo ay ku sugan yihiin qayb ka mid ah taageerayaasha wadaadka garabka ku sugan Macallin Maxamuud Sheekh Xasan waxaana wararka sidoo kale intaasi ay sii raacinayaan in hogaamiyaha ahlu sunna Macallin Maxamuud uu amar ku siiyay Sheekh Shaakir inuu iskaga baxo degmada Guraceel maadaama xaaladda ay sii cakarnaanayso ciidamo aad u xoog badan oo ka tirsan kuwa dawladda garabna siinaya maamulka dawlad goboleedka Galmudug galabta ay soo gaareen gudaha degmada Guraceel ee gobolka galguduud dhammaan xilligan waxa inta badan magaalada Guraceel gacanta ku haya ciidamada dawladda iyo waliba kuwa Galmudug marka laga reebo xirada jaamacadaha oo mararka qaar xabado ay ka soo dhacayaan halkaas oo galabtadii hore uu ka baxay Sheekh Maxamed Shaakir waxa uu wali ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa ahlu sunna taabacsanna Macallin Maxamuud Sheekh Xasan kuwaas oo wararka qaar ay sheegayaan inay la soo xiriireen Generaal Mas'uud oo kol hore ka tirsanaa ciidanka ahlu sunna isla markaana ahaa taliyihii guud ee ahlu sunna ka hor intaysan dawladda ku biirin ahlu sunna haddana hogaaminaya ciidanka dawladda ee gobolada dhexe waxaana Generaal Mas'uud wararka ay xaqiijinayaan in qaar ka mid ah ciidanka ku jira xirada jaamacadaha ay ka dalbadeen inay soo dhiibaan maadaama Sheekh Shaakir uu kaga baxsaday halkaasi isla markaana dhankooda ay dalbanayaan in maangeliyo la siiyo si xabadda ay u joojiyaan isla markaana ay isku soo dhiibaan ila ka agdhow Generaal Mas'uud ayaa inoo xaqiijiyay in generaalka ووضع هذا الهد وكل جرام مدحوينها الدولة قبلات كجلمذق أحمد مدحوينها الدولة قبلات كجلمذق أحمد قرقار قرقار هو أقبلين أيضا كاسي سن بدأ إسكسو ديوان ما دام شيخ شاكر وقبتنا كحرالة وحنا شيخ شاكر حل جو بحيي وهلنا ينين لقوم مجعابه صادق شيخ يوسف دريد أو دجال جرعال دور وين كعياري إسلامر كان أيضا مبلن أو تابع سن صادق شيخ يوسف دريد كان دجال كحرالة أنا كدجال لمن جدها دجمة جرعال وحنا ورك سيدا كلا أنت أي سيرة عنيان إن شيخ شاكر سيدا كلا صادق شيخ يوسف دريد أي قلبيان أيضا كيمد دنك حرالة إسلامر كان جرمد أهانته شيخ شاكر وجيمد جدها مجال جرعال حد حالات دوامد دجن وحنا ورك الماما يارين ساعدها صعدة لقى يابا إن جدها جامعتها أي كسب عن ماليشيات ككسوغن إسلامر كان أو أخبارات ضربك أي صوت جديان جنرال مسعود أو هذا كل جرام مدحوينها دولة جولات كجلمودك قرقار تاري وحيف فعلوا تهينا يسوع في جرمعسو علاد أفرت مع الموت خجرتي ده جماعة جرعال وأهملنا بدأ مامل جلمودك وكل سنة وحوار كسوق هذا كوح ماليشيات oo ka amar qaato Macallin Maxamuud Sheekh Xasan oo wiilkiisa u doonaya xildhibaan Cabdisamad Macallin Maxamuud iyo wasiir iyo sidoo kale saydigiisna u doonaya Cabdicasiis Sheekh Yuusuf Dareed in lagu daro baarlamaanka cusub ee dawladda federaalka ee Soomaaliya waana mid keentay in Guraceel dig badan uu ku daato dadkana la laayo Macallin Maxamuud ayaa hadda ku sugan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxaana sidoo kale aqoon-yahano iyo waxgarad ka soo jeeda Galmudug ay aaminsan yihiin in door weyn Puntland ay ka ciyaarayso dagaalka ka socda degmada Guraceel wixii soo kordha halkan ka daawo ilana daawo hadal hore uu jeediyay Sheekh Maxamed Shaakir waxaad ogtihiin khawaarij deegaamada Soomaaliya sida ay u dhibaatoonayso waa arkaysaan in ummadda ay gaalaysiiyaan markay gaalaysiiyaanna gaalo kale noo soo hiilido oo ay tiraa dadkan ka badbaadinaya hiil maahana mushaare ku qaadanayaan markaas dadkiina baaba'aya ayakiina meesha lagu biilaya kuwa kala biilaha gaalo kala ku biilay korkeen yaa ku celina marka
soomaaliya ayaa ku celinaya waxaa ku celinaa khawaarija ku celinays shabaab kuwa la yiraahdo ku celinay magaca shabaab hadda wuxuu tilmaama dhalinyaro tilmaama maahane waxa waaye kulli dhalinyaro tihiin laakiin magacii fool xumaynahayaane shubbaantu waa dadka nuxurkoodii wey dadka nuxurkoodii wey khawaarija la yiraahdaa weligood magaca waa qurxiyaan oo hadalkoodu waa qurux badan yahay ficilkooduna waa xun yahay xadiidkii bukhaariga nabigu muxuu ku yidhi yuxsinuuna alqiila wa yusii'uuna alficla buu yidhi hadalka waa samaynayaanoo waa qurxinayaan ficilkana waa xumaynayaan buu hadalkooda fiiri shabaab waa magac maalan ba ma ogtahay yani dhallinyaro wey oo tilmaamahaya inkastoo dhallinyaro markay isku sifeeyeen ay sifadii nebigu ku sifeeyey ay ka mid ahayd yaa sifadii xadiidkii bukhaariga uu ku sifeeyey muxuu ahaa xudathaa'u lasnaan waa da'yaraa la yidhi nimanka khawaarijtaa soo baxaya horta waa da'yar sufahaa'u laxlaam haddana sawiraa da'yar caqli laha jirtee ma ogta waxaa lagu qancinayaa caqliyaridooda inay ummadda laayaanoo gubaan xataa waxaa la gaarsiiyey in lagu qanciyo in qoorta inta wax loogu xiro surkaaga jar la yidhahdo isdil markaasuu isqarxinayaa isdilaya markaasaa lagu qancin fiir caqliga marka aaway sufahaa'u laxlaam yaa waa caqli waa sawiro waayaa layidhi sufahaa'u laxlaam wey xadiidka ilaahay rasuulkiisa laga soo rarayo ayaa tilmaamahaya sufahaa'u laxlaam xudathaa'u lasnaan sufahaa'u laxnaam qur'aankii bay akhrinayaan waa kaa akhri ogyihiin adiga waa kaa salaad badan yihiin waa kaa soom badan yihiin waa kaa sadaqa badan yihiin laakiin wax alla waxa